นี่แหละไม่ดูลองดูที่ลองดูอ่ะilaa iyo 50 milyan oo qof ayaa u dareeray goobaha codbixinta ee dalka Thailand oo ay ka dhacayso doorashadii ugu horeysay tan iyo afgembigii sanadkii 2014 dadka codaynaya ayaa saaka la arkayay iyagoo safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta Thailand waxaa hareeyay xasilooni darro siyaasadeed muddo sanado ah taasi oo ka dhalatay isku dhacyo dhexmaray taageerayaasha militariga iyo kuwa ra'iisul wasaarihii la afgembiyay ee lagu magacaabi jiray Thaksin Shinawatra kadib markii uu militarigu xukunka la wareegay waxa uu ballan qaaday inuu soo celin doono kala dambeynta iyo dimuqraadiyadda dalka balse dhowr jeer ayuu dib u dhigay doorashada dad badan ayaa qaba in dastuurka cusub ee militarigu uu soo saaray uu weli saameyn badan leeyahay si walba oo ay natiijadu noqotoba tiro badan oo dadka wadankaasi ayaa la filayaa inay codeeyaan doorashada markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2011 in ka badan 7 milyan oo qof oo ay daadoodu u dhaxayso 18 ilaa 26 ayaa markii ugu horeysay loo ogolaaday inay codeeyaan boqorka wadanka Thailand oo lagu magacaabo Maha Vajiralongkorn ayaa ugu baaqay dadweynaha dalkaasi inay ilaaliyaan nabadda dimuqraadiyadda iyo kala dambeynta dalka doorashada ayaa waxaa ku tartamaya asxaabta taageersan militariga iyo xulafada Master Thaksin Shinawatra sanadkii 2006 ayaa afgembi xukunka looga tuuray waxaana uu ku nool yahay dalka dibadiisa oo u baxsaday si aan dacwad loogu soo oogin balse waxa uu leeyahay taageerayaal fara badan ilaa iyo hadda waxaa kadib doorashadii sanadkii 2011 xilka ra'iisul wasaaraha ee dalkaasi ku guuleysatay Yingluck Shinawatra oo la dhalatay Thaksin waxa iyadana xukunka laga tuuray sanadkii 2014 iyadana sida walaalkeed ayay dibadda u baxsatay Saeed Ahmed Tamreise wararka telefishanka caalamiga ah ee Star